السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دawadayaasha qiimaha qaayale meel walba naga daawanaysaan. Halkan waa barnaamijkeena dunida Soomaalida oo naga barteen mar walba inaynu ku soo gudbino barnaamijka aan isleenahay markaa ugu xiiso badan yahay. Barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ah Mukhtaar Caynaansho oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed, suxufi aad iyo aad ula socda xaaladaha Soomaaliya. Annagoo maanta Mukhtaar ka waraysan doona shirkii ugu dambeeyay ee Somali Partnership Forum waxyaabo shirkaas looga hadlayay. Mukhtaar ku soo dhawow barnaamijka dunida Soomaalida. aad iyo aad baad u mahadsantahay Khaliif, adiga iyo dhammaan daawashayaashaadaba waxaan leeyahay soo dhawaada salaan diiran oo ka timid Oslo, Norway. aad baan kaaga mahadcelinaynaa sidaad nooga aqbashay inaad nagala soo qayb gasho shirkeena maanta. marka ugu horeysa waxaad nooga warantaa Somali Partnership Forum goorma la aasaasay iyo memberska ah ujeedada loo aasaasay. wallahi Khaliif, aad baad u mahadsantahay. horta Somali Partnership Forum waa in madal muddo dheer soo jirtay ilaa dawladdii Xasan Sheekh. marna waxa la qabtaa sanadkii marna laba goor, laakiin waa shir ay dawladahan daneeya arrimaha Soomaaliya markay noqoto amniga, markay noqoto arrimaha siyaasadda ay ku wada hadlaan, dawladana kala hadlaan arrimaha ay markaa daneynayaan. ajendaha ugu muhiimsan ee hadda laga hadlayo wuxuu ahaa 3 qodob. saddexdaas oo ah in doorashooyinka, amniga iyo dhaqaalaha. marka saddexdiina waxaad moodaa inaan lagu guuleysan nasiib darro. dawladduba war-saxaafadeedka ay soo saartay waxay ku sheegtay inay runtii ku guuldareysteen arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha maaragtay khuseeya dastuurka. inkastoo ay yidhaahdeen dastuurka ku-meelgaadhka waxyaabaha aan la isku haysan ama aan lagu heshiin marka laga reebo waanu dhammaystiraynaa inta ka harsan waqtiga dawladda oo ku eg 7 bisha February ayna ku soo socota ama 7 bisha labaad sanadkan soo socda oo ay naga xigto wax 2 bilood ka yar. marka anigu dee fikirkaasi sidoo u soconaya garan maayo. waxa la yidhi islaan gabowday baa xaabo badan qaadi kari weyday, markaasaa markay la kici kari weyday baa intay ka dhaqaaqday ayay 4 qori oo kale ku dartay moogtay. marka anigu dee dawladdan haddaba madaxweyne Farmaajo uu madaxda ka yahay in serious boo ma qaato. waxay yidhaahdaan runta marka la sheego dadka Soomaaliyeedna guud ahaan inay serious u qaataanba ilama muuqato. laakiin nasiib darrada waxay taagan waxay tahay dee dhibaatadu waxay ku dhacaysaa waa dadkeennii, waa dalkeennii, waa shacabkeennii, waa dawladnimadeennii iyo qarannimadeennii Soomaaliyeed ayay dhibaatadu haysataa. waana nasiib darro maanta in Soomaaliya 2 guddi oo doorasho ay laga abuuray, sababtuna ay tahay dawladdii dhexe ama dawladdii federaalka oo diiday inay la heshiiso dawlad goboleedyada iyo saamileyda siyaasadeed ee waddankii joogta. arrintaasna runtii wax aad looga murugooda weeyaan, wax qarannimada dhaawacaysa Soomaaliyeed weeyaan, wax amniga dhaawacaysa weeyaan, wax hay-adihii dawliga ahaa iyo dastuuriga ahaa ee lasoo dhisayay muddadii iminka ka dambeysay intii dawladdii dhexe burburtay in wixii oo dhan uu khalkhal siyaasadeed soo dhex galo. khalkhal siyaasadeed iyo mid amnina uu dhici karo haddaan arrintan xal loo helin. marka waxaan u arkaa inay arrintani tahay un dee jariska xoor. laakiin shirkan sidaan marka horeba yidhi waa shir inta badan sanadkiiba mar dhaca, waqti go'an ma laha. laakiin caadiyan de waxa la isku dayo sanadkii ugu yaraan mar la qabto. guul badan oo laga gaadhina ma jirto. caadiyan saad ka waraysaan dee waxyaabahan dawladaha arrimaha Soomaaliya xiiseeya ama daneeya shirarka inta badan qabtaan ee dawladda la yeeshaana waa shimreeyo hees intooda badan.
waayo waxa weeyaan wax la yidhaha top down oo wax dee dana dad kale wataan ayuunbaa dusha lagaga keenaa shacabka soomaaliyeed ee meel kasta jooga cid tala weydiisay oo tiri maxaa idin dana maxaad doonaysaan halkee wax la idinka qabtaan midna ma jirto marka runta marka la sheego de waa nasiib darrada weyn ee dalkeenii ku habsatay unbay ka mid tahay laakiin hadalkii oo kooban wax macno loo shirkaa ka soo baxay ima muuqdo haba yaraatay mukhtaar qodobadii ugu dambeeyey ee hadda shirka saxaafadooda ay ka soo saareen manoo sheegi kartaa qodobka waxyaabaha uu ku qoraalka ugu dambeeyey dabcan waxa sidaan markii hore sheegay khaliifow waxa ku qoran meesha in laga hadlo arrimaha doorashooyinka marka hadda saad ka warayso arrimihii doorashooyinka weli wax laga heshiiyey ma jiro sidii loo qaban lahaa lagama heshiinin meelihii lagu qaban lahaa lagama heshiinin ciddii qaban lahayd lagama heshiinin ciddii soo xuli lahayd lagama heshiinin si aan hadalka ku bilaabana dee 2 guddi oo doorashooyin ayaa maanta xamar ama dalkii laga abuuray dhibaatadaasna way taagan tahay laakiin haddaan anigu soo noqdo wixii warqadda lagu qoray ama communique-ga ama war-saxaafadeedka meesha ku yaallay wuxuu ahaa kow inkastoo dhinaca dhaqaalaha aanay dowladdu wax badan ka qaban waa siday u dhigeen haddana de way ku tala jiraan inay waxyaabo badan qabtaan dhinaca amniga waxay leeyihin guulo badan baanu ka gaadhnay inkastoo guulahaasi qaar muuqda aanay ahayn waayo dee intii dowladdii xasan sheekh ay xukunka ka tagtay dee tuulo la xoreeyey oo weli dalka ka mid haba yaraatee ma jirto meelo badan oo amisom joogtay unbaa dib looga soo baxay nasiib darro meelo badanna dee dhibaato ayaa ka aloosan marka amniga horta waxaan ay ku faanayaan waanu qabanay aniga iima muuqdo markaa dee iyagaa tale la weydiinaya laakiin san markiiba horeba idhi dee wax warqad lagu qoray oo aan ka turjumayn xaqiiqda siyaasadeed iyo amni ee dalkii taallaa wallahi khaliifa aniga siday macno u yeelanaysaa runta markaan kuu sheegay iima muuqato laakiin waxaan dareemo meesha ka muuqato dad badan oo Soomaaliyeed oo daawaday shirka sidii looga hadlay waa shir furan buu ahaa waxaan maleynayaa Universal iyo television Universal iyo maaragtay aaladahan internetka sida Facebook iyo meelaha live streaming lagu sameeyo toos loo daawanayay waxa ka muuqatay in maaragtay qolooyinkan international community oo intooda badan ay ka calaysan yihiin ama ka xun yihiin dhaqdhaqaaqan siyaasadeed ee waddanka ka socda iyo horumar la'aanta siyaasadeed ee magaaladii muqdisho ka taagan iyo dalkii oo dhan guud ahaan taasina sidaan markii horeba sheegay dhib bay nagu tahay laakiin hadalkii oo kooban waxa weeyaan khaliifow dee wax kastoo meesha lagu qoray amniga baan ka soo qaatay tusaale ahaan waxay meesha ku qoreen iyo guulaha ay sheegayaan waa la gaadhay dadka Soomaaliyeed ma arkaan bulshada caalamku ma arkaan amisomna ma aragto marka dee wax kastoo meesha lagu qoray haddaanay xaqiiqda siyaasadeed iyo amniga waddankii ka taagan aanay ka turjumaynin iima muuqato inay wax tarayso laakiin saan markii horeba idhi 3 qodob ee ugu muhiimsanaa laga hadlayay waxaan doorashooyinka waxaan arrimaha amniga iyo kobcinta dhaqaalaha mukhtaar adigoo aad u mahadsan si daawadayaasheena u ogaadaan mowqifyada doorashada ee la kala taagan yahay mucaaradka hadday noqoto iyo madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sidee buu qabaa inay doorashadu ku dhacdo oo waqtigan isagaa danta Soomaaliyeed ku jirtaa والله خليفة بعد ما صنعي سؤال مهمة جوابت هذا نقول أنت يا وادك تاي وحويان دورت معارض وحي ليهين وحي وين النقدان وح لو دني هاي وين النقدان وح لقى وده تشلو مدحوينا فرماجنا ده طبعا قف كستو مدحوينا وكرسي فرديا جودهان يا جارهان با وحو يسكت ضياين وده حكم كسي هاي وصون نقضه ثانا واهين وحقول لي هاي شيخ شريف با يسكت دين وصون نقضه حسن شيخ baa isku day inuu soo noqdo farmaajina inuu isku dayo inuu maaragtay soo noqdo dee wax lala yaabo maaha laakiin dhibaatada taagan waxa weeyaan haddaan matalan isbarbar dhigno xasan sheekh iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadda xasan sheekh wuxuu abuuray dee oo dadkii kula heshiiyey mucaaradkii kasoo horjeedoon anigu runtii ka mid ahaa in la abuuro madal qaraneed oo dee dowladda kala shaqaysa arrimaha masiiriga ee muhiimka sida doorashadii 2016 dee dadkii dowlad goboleedyadii xilligaa jiray baarlamaankii xilligaa jiray ama guddoomiye baarlamaanka markaa joogay siyaasiyiintii xisbiya berigaa ma jirin dee dad siyaasiyiin oo keligood socday ahaayeen
marka dadkii inta la isugu yeedhay international partnerska ama bulshada caalamiga inta danaysa arrimaha Soomaaliya ayaa la fadhiisan jiray laga heshiiyey talaabooyinka loo baahan yahay in la qaado mar kasta taasina waxay fududeysay in isku horimaadkii siyaasadeed ee dhex mari lahaa mucaaradka ama dadka dawladda ka soo horjeeday dawladdii Xasan Sheekh weeyaan tan ka hadlayaa inuu yaraado karkii siyaasadeedna hoos u dego marka heshiiska la gaaray oo la og yahay mar walba talaabada ay tahay in la qaadayo cidda qaadaysa halka laga qaadayo waa la ogaa wada cad ama road map ayaa jiray oo lagu heshiiyey nasiib darrada hadda maanta taagan waxa weeyaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu rabaa inuu wax walba jujuubo wuxuu rabaa inuu isagu gaar ahaan inuu dad uu magacaabo oo guddi aan laga heshiin ba hadda fadhida hotelkan maxaa la yiraahdaa Dekal la yiraahdo ku yaala airportka ama xalane guddidan mucaaradku raali kama aha dawlad goboleedyada intooda badan way ka horjeedaa marka wixiina madaxweynena ma raba inuu cid la hadlo ma muuqato inuu dad soo dhaweynayo ma muuqato inuu fikir in dad kala qabaan uu dhageysto dhibaatada horta halkaas ay ka taagantahay laakiin hadalkii oo gaaban mowqifkiisu waxa weeye waxaan miiska idin soo saaray qaata ha noqoto guddida doorashooyinka ha noqoto yani dawladda maxaan jeedaa dawlad goboleedka ama cid ay soo xuli lahayd iyo ciddii meeshii lagu qaban lahaa wax walba isaga ayuunbaa dee ay u muuqataa inuu samaystay waxyaabaha la isku haysta waxaa ka mid a ciddii matali lahayd ama soo xuli lahayd baarlamaanka ka imanaya gobolada waqooyi ama Somaliland marka de meeshii in wada tashi halkii uu ka dhici lahaa Khaliifow ayaa meeshii aad moodaa inuu Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed maanta inuu wixii u wado si gacan maroojisa marmarka qaarkoodna waxay Soomaalidu tiraahdaa de aan wada hadallo waa aan heshiino marka midda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo hadda looga fadhiyaa waxa weeyaan isaga yiri waxa noqonaya oday Soomaaliyeed oo nabad ka shaqeeya marka de ballantii uu shacbiga Soomaaliyeed u qaaday inuu fuliyo inuu maaragtay oday noqdo inuu nabadda ka taliyo anigu ma diidani sidaan marka hore hadalka ku bilaabay cidna ma diidna bay muuqataa inuu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu noqdo de presidential candidate ama musharax madaxweyne taa xaq buu leeyahay dastuurka ku meel gaarka ee federaalka ee waddankeena ayaa dhigaya inuu qof kasta oo buuxiyo shuruudaha laga rabo ee dastuuriga inuu madaxweyne isu sharxi karo aniga iyo adiga iyo cid kasta iyo daawadayaashaada oo dhan baa madaxweyne isu sharxi karna haddii aan fulino shuruudaha la inaga rabo laakiin arrinta meesha taala waxa weeyaan de madaxweynuhu ma noqonayo askarigii qofka soo xidhayay xaakimkii dadka xukumayay iyo de maxaa la yidhi garsoorihii kiiska kugu soo oogayay saddexdii uu dhoodaan sheegay allah u naxariiste ayuunbuu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo rabaa inuu de noqdo tiina waa laga diiday mid soconaysana maaha shacabka Soomaaliyeedna mid ay aqbalayaan maaha laakiin aniga khatarta ii muuqata waxa weeyaan Khaliifow maanta waddankeenu wuxuu ku jiraa xaalad siyaasadeed oo adag dadkii dhibaatooyin badan baa taagan magaaladii Muqdisho waxay noqotay xabsi guri meel walba dhagxaan lagu gooyey dhaqaali baa hoos u dhacay COVID-19 ama cudurkan viruska coronaviruskii baa meeshii jira dhaqaale xumaa jirta amnigii baa sii xumaanaya marka siyaasaddiina waqtigeedii wuu soo dhammaanayaa rajadii la qabay baa luntay dimuqraadiyaddii baa luntay maalin dhaweyd waxaan akhriyayay dorhaad baan u malaynayaa war ay soo saareen maaragtay ururka saxafiyiinta ee caalamiga Soomaaliya waa waddanka ugu dambeeya markay noqoto xuquuqda aadamiga iyo xuquuqda wariyaashu ay leeyihiin soo Khaliifow maanta haddii aad xamar ku noqoto ama waddankii meel ka mid a waxa laga yaabaaba in dee lagu yidhaahdo Mukhtaar Caynaashiye mucaaradka maxaad uga hadashaa ama dawladda arrimaheeda u gashay marka runtii dee arrimahaas oo dhan baa jira marka madaxweynaha iyo dawladda iyo mucaaradka waxaan odhan lahaa iyo shacbiga Soomaaliyeedba war xaraaradda siyaasadeed hoosa loo dhigo Soomaalinimada ha laga shaqeeyo waddanka yaan dib loo geysanin 30 sannadood baa la isdilayay 30 sannadood baa wareer lagu jiray 30 sannadood baa dumin iyo dhac iyo buuq lagu jiray ummadda Soomaaliyeed ha loo tiro madaxweynuhuna maadaama uu fadhiyo dee kursigii u sarreeyay hogaankii waddanka uu hayo waxa laga rabay inuu oday noqdo inuu wanaag ka shaqeeyo inuu nabad abuuro inuu dastuurka ixtiraamo laakiin ama tayada qaado ama dee in wax soconaya ma jiraan de Khaliifow taas waxaan u malaynayaa inay tahay dhibaato weyn oo dadka Soomaaliyeed aanay aqbali karayn
markaa waxyaabaha la isku maandaafsan yahay waxa ugu horeeya waxa weeyaan kow doorashadii oo waqtigeedii aan waxba ka hadhin guddiyadii qaban lahaa oon weli lagu heshiinin sidii guddiyada loo dooran lahaa oon weli lagu heshiinin wax alla wax la qabtay ilaa hadda ma jiro baarlamaankana waqtigiisii wuu dhammaaday madaxweynahana waqtigiisii wuxuu ku egyahay 7 bisha 2 ee sanadkaynagu soo socda 12 saqo dhexe markay gaadho madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo aniga iyo adiga iyo qof kastoo ka mid ah daawashayaashaada ayuu la mid yahay wax sharci ah oo awood siinaya haba yaraatee ma jirto haddii aan dib loo dooran dee doorashada si dib loogu dooranayaana hadda iima muuqato si ay doorasha waqtigeedii ku dhacaysa iima muuqato waayo dee 2 bilood baa hadhay maanta waa 8 bishii 12aad 8 bisha maxaa la yidhi 2 sanadkaynagu soo socda 2 bilood oo kaamila ayaa inaga xiga haddii alla nafta inoo gaadhsiiyo ama nafta inoo daaya markaa 2 bilood maxaa lagu qaban karaa even norwayda inaynu joogno sidaad khaliifa ka warhayso 2 bilood wax ka badan bay qaadataa doorashadu inkastoo wax walba electronic yihiin oo qof walba uu ID card sito qof walba number sida baabuurka leeyahay oo la ogyahay meeshuu ku nool yahay halkuu joogiyo meeshuu ka quudsada ama ka shaqeeyo markaa waddan horu maray oo caynkaas ayaan 2 bilood doorasho lagu qaban karin markaa sharci u ogolaanaya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo maanta waxaan kororsanayaa waqtigayga waxaan doonayaa inaan sanad ama 6 bilood ama 3 bilood sii joogo ma jirto haba yaraatee dastuurka meel ay kaga qoran tahay haba yaraatee waqti baan kororsanayaa ma jirto sida qure technical extension ama waqti kororsi farsamo oo waqti gaabana lagu samayn karaa waxa weeyaan iyadoo la gaadho heshiis siyaasadeed oo saamileyda Soomaaliyeed oo dhami ay raalli ka tahay haddii aanay taasi dhicin socon mayso dad badan baa waxay yiraahdaan xasan sheekh waqti baa loo kordhiyay sheekh shariif waqti baa loo kordhiyay maxaa loogu diidayaa in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo jawaabteedu waxa weeye su'aasha xasan sheekh haddaan soo qaadano u dambeeyay waxa weeyaan xasan sheekh saan markii horeba soo sheegay dee wuxuu sameeyey road map ama waddo cad oo la ogyahay maalin walba wax la sameynaya waxay tahay marka haddii in socdaalkii aan maanta ku tegi lahayn meel oo waqtigii aan inagoo waddada sii soconno aan gaari kari weyno lana ogyahay hadduu ilaahay nafta inoo daayay inaan gaarayno meeshaan u soconnay dee saacada ma 2 ama bil ama 2 ama 3 in lagu daraa wax dhib oo leedahay ma jirto cid diidaysa taasina ma muuqato laakiin meeshaan iska fadhiyayaa waxaan sugayaa inaan waqti kororsado khaliifa taa dadka Soomaaliyeed ma yeelayaan waxaan dib iyo dagaal iyo colaad siyaasadeed ahayna keeni maayaan mukhtaar ma santahay madaxweyne farmaajo waan aragnaa waxaa ka go'an inuu term labaad soo noqdo si uu ku soo noqdo ama sharci ku soo noqdo ama sharci darro waa suu jecel yahay isaga si uu soo gelaysa lama hubo mucaaradka tirada badan ee Soomaaliyeed ay ka mid yihiin madaxweynayaashii horeete ma jirta aragti ay ku midaysan yihiin oo doorashada isaga madaxweynuhu hadduu si fair u qabto waa khayr oo khayrku xukuma yeelo haddii uu wax isdaba mar isku dayo waxay samayn lahaayeen ama qaabkay u arkaan in doorashadu ay u dhacdo tahay waa muxuu yahay maxaan ka ognaa walaa horta khaliifa aad baad mahadsanta dhowr su'aalo isdaba yaala ayaad weydiisay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa su'aasha haddaan isku dayo balnaan furfuro su'aalahaaga horta nasiib darro inaan run isu sheegno weeyaan nasiib darro Soomaali wax badan oo heshiis ku tahay ma jiro waxa uu leeyahay heshiis lagu yahay waxa weeye in 4 sanadoodba doorasho mar dhacdo in isbedel siyaasadeed yimaado waxa kaloo heshiis lagu yahay in 4.5 ama hab qabiili wax lagu qaybsado waxa kaloo in guud ahaan lagu heshiis yahay in systemkan federaalka oo aan weli dadkeena intiisa badan aanay fahamsanayn soo shaqaynayo inuu wadankii ka ambaqaado waxa kaloo heshiis lagu yahay dabcan in qarannimada Soomaaliyeed sii socoto Soomaaliyana ay sii jirto ummadda Soomaaliyeedna ay mid noqoto waxa guud ahaan waxa heshiis lagu yahay waa inta laakiin markay noqoto operational issues ama waxyaabaha heshiiska lagu yahay sidii loo fasiri lahaa ee looga dhigi lahaa wax la dhaqan gelinayo taa wali Soomaaliya heshiisku ma aha nasiib darrano de waxaad moodaa mucaaradka qudhiisu uu kala daadsan yahay markaan runta kuu sheega amba mucaaradkan ku jiraa laakiin anigu waxaan hadda u hadlayaa dee saadad baa hadalkaaga ku bilowday nin aqoonyahan oo danaynaya danta guud ee Soomaaliya oo halkan nin siyaasi ahaana uma fadhiyo marka waxa habboon inaan runta dadka u sheego runtuna waxay tahay runtii meesha la isma dhaamo
maanta haddii uu madaxweyne farmaajo uu wax siyaasada oo uu keenay ma jiro ma hadlin oo ma odhan markay dhaqaale noqoto saasaan waddanka wax uga qabanayaa ma odhan saasaan oo amniga wax uga qabanayaa ma odhan dadka saasaan isugu soo dhaweynayaa ma noqon arrimaha dibadda ama foreign policy-ga waxaasuu noqonayaa waxaasoo dhan uga socdaa vision siyaasadeed ama aragti siyaasadeed oo guud oo uu leeyahay waddankii ayaan ku hogaaminayaa ma muuqato mana keenin nasiib daro markaan runta sheego mucaaradkuna runtii wax badan ma dhaamaan laakiin mucaaradku waxay dhaamaan waxay leeyihiin waar wixii lagu heshiiyey yaan la burburinin dowladnimadeennii yaan la burburinin qarannimadeennii yaan la burburinin ummaddii ha laysu soo jiido doorashadii aan ku heshiinay aan qabanno haddii aad naga guulaysato waa kuu mahadnaqaynaa waxaanu ku leenahay waliba waananu ku taageeranaa dee kursigii sii fadhay laakiin wax walba waan maroorsanayaa meeshii ma soconayso dhibta ugu weynina waxa weeyaan doorashadii haddii waqtigeedii lagu qaban waayo dee markaa waxay noqonaysaa aanstillo oo taana soomaaliya saan hadalka ku bilaabay dee wax ay dani ugu jirto maaha wax la aqbali karaya maaha wax ummadeenna meel geynayana maaha 30 sannadood baan burburnay 30 sannadood baa carruurteena cidla jiiftaa 30 sannadood baan iskuulla jirin 30 sannadood baa moogtahay dhaqaalaheeni uu sii burburaya 30 sannadood baa dadkeeni waddankii ka carareen aniga adiga ka mid oo dee qurbaha ku nool kuna gaboobayna marka in waddankii hadda dee dhibtaasoo dhan laga saaro la yidhaa waar sidaynu wax u wada qabsannaa waxay ku dhaantaa walaalkay khaliifa ma jirto taana ma muuqato inuu farmaajo diyaar u yahay waana ta mucaaradku kaga duwan yahay fikirkayga aniga ama aan qabo farmaajooyin waxay leeyihiin bal waxaan aan ku heshiinay aan dhaqan gelino isaguna wuxuu leeyahay tayda hala raaco saan soo noqdo mukhtaar waxaa soo yeeraysay khilaaf dowladda federaalka ama madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maamulka jubbaland kala dhexeeya maadaama aad tahay nin mucaaradkiina ka mid ah aqoon-yahana saxaafaddana qayb ka ah maxaad kala socotaa khilaafka jubbaland iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xaguu salka ku hayaa muxuu yahay أنا وحنا أمسنا جري الله يتقانا إن شو بلان لقى قدرين أنا أمسنا هاي سببتنا وحويان دور الشو ودن ككنا عدا إلا هذا أول أورنكرو ودور الشو بقول كيف بقول سيدي لو تلقى لو عدا متشرو مري كانوا كود هذا ديمقراط دبان هاي أدون كانوا كخص بيشري ديمقراط دبان هاي ما ديمقراط السيستم كديمقراط جينا قاطعنا أيام ما طلع إسكو هيستا يام مدحوينا هاي farmaajo doorashadiisi baa la isku haystaa dee isagaba dad baa aaminsan inuu ku jiro inuu maaragtay si aan wanaagsanayn uu ku yimid meesha ama yani dowladda shisheeye ay meesha keensadeen si kasta ha noqotee axmed madoobe waa la doortay shacabka reer buunin waxaan u jeedaa jubbaland baa doortay waxay ahayd haddii uu madaxweynuhu arkay inay jiraan galdaloolooyin ama goldaloolooyin siyaasadeed ama ismaandhaaf siyaasadeed oo ka jira ama ka dhici karaa state of jubbaland waxay ahayd inuu si odaynimo madaxweynaha ugu taga axmed madoobe uu yidhaa war arrintan iyo arrintan waxaan rabaa inaan dee anaa madaxweynihii federaalka inaan kaa caawiyo sidaynu wax u wada qabsannaa sidaynu gobolkii u midaynaa sidaynu dadkii deegaanka isugu soo dhoweynaa isagu burun buu qaato wuxuu leeyahay ciidamada Ethiopian meesha keenaya waadweed wixii ka dhacay ciidamada Ethiopian ka airportka agtiisa joogay 2 sano ka hor sanad ka hor baan mulay adigu 2 sano dhow meesha soo galay isku dayna xoog ku qabsadaan airportka ciidamadii Kenyaanka oo aamusan labadooduba ay kamid yihiin baa joojiyay maanta madaxweynuhu halku ciidankii loo tababaray inuu al-shabaab ay la dagaalamaan ayaa maanta loo daadgureynaya Jubbaland iyo gobolka Gedo ee Jubbaland kamid ah daan waxaan u arkaa markaa inay priority-ga madaxweynuhu ay khaldan tahay axmed madoobe iyo dowladda madaxda ka yahay ama dowlad goboleedka madaxda ka yahay cadow Soomaaliyeed maaha waa nin muddo gaaban la doortay hadday shacabku diidaan uu iska tegayaan sidaan anigu dareensanahay axmed madoobe maba aha nin dan iyo muraad weyn kale inuu xukunka sii hayo marka waxay ahayd inuu madaxweynaha la shaqeeyo waxay ahayd inuu maaragtay yidhaa war madaxweyne axmed madoobe daanaha kaa sarreeyo federaalkii oo dhan matale dee aan kula taliya waxaan iyo waxaan aan qabanno halkuu saayee lahaa buu bur qaatay ciidamuu geeyey dagaal buu meeshii ka aloosay priority-ga ahaa in al-shabaab la jabiyo gobolkiina la xoreeyo muqdisho iyo kismaayo la isu furo muqdisho iyo garbahaar la isu furo muqdisho iyo yacni doolow la isu furo dhulkii oo dhan la isu banneeyo diyaarado u kala socdaan ayaa shacabkii la yidhi diyaarado ma duuli karaan madaxweynihii lagu soo rogo cunaqabatayn oo la yidhi xataa Kenya muqdisho Soomaaliya meelaad tegi kartaa ma jirto
de markaan waxaan arkaa waxaas inay khalad yihiin madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo waxa looga fadhiyey odaynimo madaxweynenimo iyo suldaannimo inuu meeshii la yimaado dhibaatooyinka furfuro laakiin inuu dab iyo batrool isku daro oo carqaladda uu isagu arkay inay jirto inuu maaragtay sii fidiyo gobolkii Jubbaland degmo walba deegaanka xukun baa ka jiray dowlad baa ka jirtay heer deegaana maxamed cabdilaahi farmaajo dowladdii federaalku dowlad bay dowlad ka dul keentay gudoomiye ka dul keentay ciidan bay ciidan ka keentay ani waxaan aaminsanayaa aan soo sheegay in Axmed Madoobe iyo dowladda Jubbaland ba laga gardaran yahay dowladda federaalka oo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo hogaamiyana ay tahay dhibta waddanka haysata gaar ahaan gobolka Jubbaland aad ba waqtiga gabagabadii ayaa soo dhow saad sheegtayna khilaaf badan iyo kala duwanaansho aad u culus ayaa u dhaxaysa dowladda federaalka oo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo hogaaminayo iyo mucaaradka oo ah xisbiyadii iyo madaxweynayaashii hore iyo maamul goboleedyadii maxaad ma aragtay u aragtaa xalka inuu yahay oo loo baahan yahay waqtigan yar ee dhiman in lagu dhaqaaqo si loo guulaysto oo dhammaan dhinac walba Soomaalida oo dhan wada guulaysto mahadsanid khaliif horta mid baan odhan lahaa intaan su'aashaada ka jawaabin oo ah aniga horta iima muuqata inay doorasho waqtigeedii ku dhacayso intaan la gaadhin 8 bisha labaad ee sanadka 2021 ay doorasho dhacayso taasi ma muuqato farsamo ahaanna haddii xataa siyaasad ahaan lagu heshiiyo farsamo ahaan inay dhacayso ima muuqato taasi waa mid ta kale su'aashaada maxaa ay tahay in la sameeyo anigu waxaan aaminsanahay kubaddu waxay ku jirtaa kolayga maxamed cabdilaahi farmaajo isaga ayay tahay inuu soo saaro isaga ayaa waddankii hoggaankiisa haya isagii baa ah madaxweynaha isagii baa moogtay awooddii siyaasadeed oo dhan haya isagaa kursigii ku fadhiyo fila Soomaaliya jooga isagaa dastuur ku siinaya awoodda siyaasadeed ee madaxweynenimo ee dalka iyo waxaan la yidhaahdaa leadership ama hoggaan sidaa macnaheedu waxa weeyaan isaga ayaa laga rabaa inuu xal la yimaado halkuna wuxuu ku imanayaa kow in uu la tashado dadka Soomaaliyeed ay dalka wadaagaan oo ay ka mid yihiin mucaaradka ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada madaxweynayaasheeda inuu yiraahdo Mukhtaar Caynashaan maanta Jubbaland madaxweyne uga dhigaya ama in koonfur galbeed oo ninkaas aniga ii soo ururinaya in dadkii dooran lahaa ama xildhibaanadii dooran lahaa khaliifo taas waxaan ila muuqataa dadka Soomaaliyeed oo dhamina aaminsanay inay ula muuqato inay tahay isku xoor qaran dumin iyo khalkhal siyaasadeed oo waddanka la gelinayo madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay lagama maarmaan inuu sameeyo waa inuu wada tashi la yeesho dadka Soomaaliyeed ee dhulka la leh dadka xoog kuma iman qori dhulka kuma qabsan cod baa la siiyey cod inuu ku helo kursiga inuu ku soo noqdo weeyaan dadka la tartamayana xaq waxay u leeyihiin inay iyaguna cod raadsadaan sida uu isagu u raadsanayo sida uu raadsaday loogu doortay marka inuu nabadda ka shaqeeyo madaxweynuhu waa muhiim Axmed Madoobe inuu la hadlo weeyaan raada war arrimaha Jubbaland farahan kaaga qaadaya bal halkeen taageero waan ku siinayaa intii awoodeyda dhulka Soomaaliyeed iyo waddankeena nasiib darro dhaqaale badan ma haysto laakiin waxa loo baahan yahay dhaqaale ma hay ugu horeeya waxa loo baahan yahay waxa weeyaan wada tashi siyaasadeed oo xal siyaasadeed keeni kara wax kasta oo kale laga hadlaa waa waqti lumis maanta saadarkiisa khaliifo wasxaafadeed kan ay dawladdu soo saartay iyagoo la hadlaya in yani ay wada shaqeynayaan international community waxay ku leeyihiin dastuurkii baanu dhammaystiraynaa marka laga reebo yani qodobada la isku haysto ama aan laga heshin de arrintaasi sidee u dhacaysaa 2 bilood 4 sanadood bay haysteen maalin qura lagama hadal in la isku dayo oo dastuur kale wax laga qabto marka maalin quraan wax walba ku sameeynaa ama 2 bilood baan ku sameeynaa waa jir isku xool been baa dadka Soomaaliyeed loo sheegay runtii marka madaxweynuhu hadalkii oo kooban waa dheeray raalaha waxa weeyaan midka qura ee xal ku iman kara waa wada hadal siyaasadeed wada hadalkiina qofka steerinkiisa hayee bilaabi kara waa isagaana furi kara wada hadalka isagaana demin kara haddana waxa u muuqataa in wada hadalkii damiyo aad iyo aad ayaan kaaga baahadinaynaa Mukhtaar Caynaansho waqtigaaga qaaliga iyo sidii aad faahfaahinta iyo xogta nagu siisay shirkii Somali Partnership Forum annagoo rajaynaynaa inuu noqon doonin kulankeena ugu dambeeyay wax walba Soomaaliya ka soo kordhana aan maaragtay ugu martiqaadi doono hadalkii ugu dambeeyay noo soo xir barnaamijka
aad iyo aad baad u mahadsantahay khaliif waxa quraan odhan lahaa waxa weeyaan yaan soomaalinimada laga tegin yaan waddanka iyo dadka dib loo geysanin ummadda ha loo tiro midnimada soomaaliyeed waa lagama maarmaan dadka soomaaliyeed mustaqbalkoodana dadka gacanta ku haya waxa weeyaan dadka leadershipka ama hoggaanka siyaasadeed haya ha noqoto madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdilaahi farmaajo ama ha noqdaan dowlad goboleedyada madaxdooda marka anigu waxaan ku talin lahaa oon kula talin lahaa shacabka soomaaliyeed inay la hadlaan madaxdooda ay yidhaahdaan waar sidanay nama qabatee waddankana dani uguma jirtee waxaan waxa laga bedelo waddanka waxa loo qabto dhibtahana laga daayo tartankan siyaasadeed iyo hirdankan la isku dilayaa waddanka meel uma wada hala joojiyo danta soomaali weynna ha laga taliya ayuun baan odhan lahaa aad baad mahadsantahay dawadayaasha qiimaha qaayale aad iyo aad ayaan idinka mahadinaynaa barnaamijkeeni dunida soomaalida maanta oo marti nooga mukhtaar caynishe idiina daadiinaya anigoo khaliifa intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa intaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum nabadeen mahadsanid